daawadayaal kusoo dhawaada caalami channel waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa 5 waxyaabood oo ah waxyaabaha ugu mucjisada badan caalamka ama 5 goobood oo ku yaala caalamka oo aad u mucjiso badan. subscribe garee waa channelka caalami channel. lambarka koowaad, buurta magnetka waxay ku taalaa gobolka Brunwiski ee wadanka Canada. weligaa ma aragtay wax biraho ama gaari intaad buurta salkeeda dhigtid keligiis ka fuulaya buurtii wax soo jiidanaya aanad garanaynin. wax kasta oo bira oo buurta salkeeda la dhigaa ku cararaya dhaladii buurta. gaari dhan oo dansan ayaa buurta keligii kor ugu yaacaya. waa wax aad mucjiso scientistayaashana ilaa hadda baaritaan bay ku hayaan labana yaqaano. boqolkii sanadooda ugu dambeysayba waa la ogaa. waana 2 goobood kaliya waxa caalamka ku yaala buuro noocaas oo kala mid waxay ku taalaa India, iyadana waxa loo yaqaanaa The Magnet Hill. tan ku taala gobolka New Brunswick ee wadanka Canada, iyadana waxa loo yaqaanaa The Magnet Hill. waa isku magac. marka waa wax aad iyo aad mucjiso oo xitaa kubad bir ah haddii intaad soo qaadid dhinaca kale u laadid kubaddii keligeed intay iska soo noqotay iyo buurtii dib u soo fuulaysaa. marka waa wax aad mucjiso oo wax meesha ku aasan lama garanayo oo waa la isaga tuhmayaa birlab, laakiin calaamada birlabeeda ka muuqda meesha iyada ah ma jiraan. marka haddii aad chance u helaysid bal soo eega oo dalxiisa ayaan dadka oran lahaa. lambar 2, weligaa ma aragtay tuulo dhan oo sidii loo deganaa habeen madow qofna la waayay. dadkii deganaa ilaa 800 oo qof ayaa ku noolaa tuulada iyada ah. waa meel lake ah oo ku taala dhinaceeda gobolka Alaska. habeen madow ayaa dadkii deganaa iyagoo shay qaadan hub iyo dhar iyo midna iyo cunto ayaa qofna la waayay. iska sahamiya ah ayaa muddo kadib meesha booqday dad qaraaba ay sidii soo salaan dabadeedna magaaladii oo dhammiba waa magaalo aakhiraad. waa meel haawanaysa oo qof degan dadkaas jaan iyo cilmi meel ay dhigan ilaa hadda lama yaqaano lamana garanayo. midda 3aad, beertii balaayada oo ah beer ku taala gobolka Utah wadanka Mareykanka ama loo yaqaan Skinwalker Ranch oo qisooyin badan ay ka dhaceen filmana laga sameeyay. reer baa deganaa oo beertan iibsada reer Sherman loo oran jiray. habeenkii ugu horreeyay waxa ugu yaabka badan ay arkeen wuxuu ahaa in iftiin ay arkeen ay gaari moodeen dabadeedna ay aadeen dadna u duulay wixii. dabadeedna waxay arkeen waxyaabo duulduulayo ifayo eedoodii baacsatay waa la laayay, lo'doodiina waa laayay. dibic dhiiga iyagoo oo aanay ka dhicin ayaa laftii oo kaliya meeshii lagu reebay. lambarka 4, dhagaxaanta guurguurta waxay ku taalaa oo laga helaa meesha loo yaqaano The Death Valley. ayaa laga helaa dhagax ma aragtay adigu wax wada aanay jirin oo keligiis ka lugaynayo soconaya. raadkiisa inaad aragtay adoo arkayo soconaya dhagaxaas. ilaa hadda lama yaqaan dhagaxaanta waxa dhaqaajinaya iyo waxa wada. waa wax caadi ah oo la yaqaano oo la wada og yahay oo loo dalxiis tago oo la soo arko. ilaa haddana aan loo haynin wax lagu sharaxo. waa dhagaxaan waaweyn oo keligood iska socda oo midba mid uu goynay mid ku dhacaya xitaa ma jiro. caadi bay isaga lugaynayaan meesha iyada ah. biyo qaadaya ma jiraan, dabayl ma leh, waxba ma leh. lambarka 5aad, saddexagalka shaydaanka wuxuu ku yaalaa wadanka Japan. waa meel bad ah. wixii taga ama dul mara diyaarad, doon, markab, dad ma soo noqdaan. adigu barmuudaad maqashay saddexagalka shaydaanka ee Japan? weligaa ma maqashay? waa maya. doonyihii xitaa ka daba tegay doonyihii la waayay ayaa ilaa hadda lahayn jaan iyo cilmi meel ay dhigaan ilaa dawladdu ay mamnuucdayba in halkaas gaadiidka baddu ay maraan.